السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهان وايدين سلامي meel walba dunida daafeed ay ka daawanaysiin waa nuux cige kulay barta ay ka daawanaysiin waa bartayda nuux cige fadlan daa nagu cusub tahay noo subscribe garay haddaad nagu cusbeen hor noo joogtin aad baa u mahadara joogaaga noo like garay si dhalinyaro kale ama asxaab kale wanaagsan noogu gaaro maaragtay channelka actually maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo barnaamijkii hore ugu soo hadli jiray developerga ayaan doonayaa su'aal dhowr ah iga soo weydiiyey inaan maanta ka jawaabo hadduu ilaahay ii saamaxo waqtiga su'aalaha badan la isoo weydiiyey waxaa ka mid ah horta waxaan arkaa badanaa dadka Soomaalida inaysan maaragtay barnaamijkan si fiican ula dhacsanin ama u fahansaneyn yani wuxuu asaga ka hadlayo iyo soo u socday programka iyo processka iyo durationka intuu waqti qaadanayo dad badan ayaan arkay soo weydiinayo ilaa waqti intuu qaadanaya ilaa waqti intuu sugaya goormeen baxaya tada kale markaan ba xaggaas tago meel aan dego ma iga isiinayo sidee maaragtay nolosha noocaas xaggaas ku wajaha su'aalo noocaas zaid la isoo weydiiyaa iyo su'aalo kale laakiin badanaa waxaan arkaa inaysan maaragtay programka aad uga dhacsaneyn aad ula fahmin ayaan arkaa marka programka horta DS260 marka stepka koowaad maaragtay soo guuleysatid hubtid inaad soo guuleysatay oo selected lagu yiraahdo waa lagu select garay stepka labaad aad sameynaysid waxaa waaye DS260 inaad buuxisid by the way DS260 dadka qaar aan fahansaneyn muxuu ahaa DS260 maxaa ligaga baahan yahay horta waxaa jiro markaad guuleysatid waxaa lagu siinaya waxa la yirahdo case numberkaas waa mid ka ah adiga meel kasta aad u qaadan doontid oo maaragtay mar walba kula socon doono ayaa la yirahdaa case number yani case-kaaga numberkiisa gooniga ah aad leedahay waay DS260 markaa buuxinaysid ayaa lagugu weydiinayaa locationka lagaga qaadayo interviewga dad ayaa isoo weydiiyey locationka ma ka dhigan kara Uganda ayaga Kenya u imaada maaragtay interviewna ku maraan consularka Uganda ku yaalo ma qaabilay dadka DS260 maybe dadka kale inuu qaabili karo oo kaga shaqeeyo consulars uu leeyahay laakiin consular oo xaggan East Africa dhan u weyn Nairobi ku yaala hadday noqoto Uganda hadday noqoto ku Kenya hadday noqoto ku Soomaaliya hadday noqoto ku Sudan xaggan ku maraan almost Tanzania xaggan ku maraan dhamaan Nairobi ku maraan interviewgooda Nairobi and East Africa xarumaheeda oo maaragtay UN maaragtay leeyahay America leeyahay xarunta embassy u weyn xaggan ku taala marka xaggan marka iga dhan loo host looga dhigo lagu soo post gareeya meanwhile dadka dhan badana soo apply gareeyo oo East Africa mostly marka badana waxaa lagu soo postigood marka koowaad waxay arkayaan Nairobi arkayaan marka hebel wadaad guuleysto lagu dhahaa xagga hoos fiirisid case numberkaaga aragtid waxaa lagu dhahayaa posted Nairobi lagu soo post gareeyay marka micnaha ma Nairobi inay qasab ku marto interviewga ma aha okay dad waxaa isoo weydiiyeen markaan apply gareynayo waxaan joogay Muqdisho hadda waxaan joogaa Turkey marka maxaa ila gudbo maxaa sameyn karaa inta ka dhigan kara interviewga ma Djibouti ka dhigtaa maxaa ku soo celinaya haddii hal mar aad buuxisay oo maaragtay kuu soo baxayna adigoo ma joogtid Turkey isla Turkey ka dhigan kartaa maaragtay in interview lagaaga qaado dad badan ayaan fahansaneyn sida u fahansaneyn DS260 adiga dooran kartid meel kasta aad ikhtiyaarka haleeli kartid waqtiga lagaaga soo baahdo oo tagi kartid ayaa ka dhiganaysa interview location-kaaga marka su'aasha koowaad waayaan dhihi karaa oo maaragtay DS260 markaasaan u buuxinaysid su'aasha koowaad lagu weydiinayo waa waxaa kaloo iga xasuusin dadka insha Allah bin laakiin guuleysan doona bisha soo socota toddobadeeda inay maaragtay labada week u horeey ku buuxiyaan DS260 sidii maaragtay ugu wanaagsanaado maaragtay lakigooda ama ilaa markaad guuleysto laguma dhahayo selected guarantee waayo aad helaysaa ma aha possibility waxay ku xiran tahay sida ali aad soo apply gareysay ku xiran tahay oo maad DS260 u buuxisid ayay ku xiran tahay marka dhaqsina apply gareysana in ku dhiirigelinaya marka su'aasha ah maaragtay DS260 location-ka meel kasta ma ka dhigan karaa waa ka dhigan kartaa marka DS260 buuxinaysa ayaa ka dhiganaysaa dadka hadda 23 baa la hadlaya kulli weynaska noqon doono oo maaragtay walaalaha Soomaaliyeed baa la hadlaya kuwa haddana dhaafay already weyna dhaafeen kuwa hadda xataa qaar waxay dhahayeen yani ma bedelan karnaa meel kale ma ka dhigan karnaa waa ka dhigan kartaa laakiin maaragtay meelaha qaar ka dhiganaysa dad way kala duwan tahay hadda kuwa Soomaali jooga ama kuwa Africa jooga especially Nairobi lagu soo post gareey Nairobi ka dhigteen maaragtay interview location-kooda wareer badan ku jiro waxay leeyihiin maxaa uga dhiganay way ka qoomameynayaan by the way aniga mar horna waa la hadlay waan u sheegay maaragtay inaan laga dhiganin Nairobi wayna dhib badan tahay hadii 2017 up to now dhibka badan zaid ma jirin laakiin hadduu zaid sii noqday oo dadka dhan wada dareemeen xagga siyaasiyan weeyaan sida hore idinku sheegay marka waxaa soo haray su'aasha ah
meesha aan ka dhigan Kampala ka dhigan kara Kampala kama dhigan kartid Kenya un baa maaragtay ka dhigan kartaa Kenya ka dhiganina insha Allah waxaa ka dhigatiin Djibouti ka dhigta Ethiopia hataa ka dhiganina Djibouti ka dhigta waa Djibouti meel Soomaali ah oo joogto ah oo maaragtay lagu kalsoonaan kara su'aalaha way badnaayeen dadka inaysan fahansanaynin ila eg tahay wixii su'aal ah oo soo xasuusto insha Allah bidin karim soo post garan doona had intaasan jeclaysan in la wadaago marka intaas ku joojinaa insha Allah bidin karim waxaa jiro ciwaano fake ah oo been ah yani oo maaragtay ciwaanka hadaa aragtid inuu u dambeeyo .com ama .com u dambeeyo aragtid ma laha governmentiga ma laha oo wadankaas lagama laha badana hadda waxaa arkaa dad badan oo isoo sheegareeyay maaragtay waa furmadi green cardkii loo apply gareey maaragtay dhahay oo lacag loo weydiinayo information badan loo weydiinayo dadkaas mar hore kasoo hadlay ciwaanada fake ah .com ku dambeeya aaminina shakhsiga iskale ama organization iskale domainka la soo gadan karaa marka is ilaaliya maaragtay preferencegiina ilaashada insha Allah .com kan aaminina sida oo la socotiin maaragtay DV lottery-ga sanad walba wuxuu furmaa October ilaa November afafkeeda hore wuxuu intaas ku xirmaa November wuxuu furmaa October furmaa ilaa November afafkeeda hore xirmaa bisha shanaad sanad ku xigaana la egta jawaabta intaas oo weeyaan muhiimada marka insha Allah bidin kan xagaas ku joojinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh